Seminaarkan oo ay soo qaban qabisay hay'adda imkan oo kaashanaysa hay'adda EZA ujeedkiisana ahaa mid looga hadlayay xoojinta iyo kordhinta ka qaybgalka siyaasadda beelaha la heebsooco iyo qoondada haweenka ee 30% ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho. Seminaarka ayaa waxa uu socday muddo hal maalin ah waxaana ka soo qaybgalay xildhibaano, odayaal dhaqameed, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intuu seminaarka socday ayaa waxa ka qaybgalayaasha la barayay casharro ku saabsan doorashooyinka. Ugu horreyn waxaa seminaarka furay agaasimaha guud ee hay'adda imkan Ibrahim. Waxa uu sheegay in hay'adda imkan oo kaashanaysa hay'adda EZA ay seminaarkan u qabatay sidii doorka haweenka ee 30% ay ugu heli lahaayeen siyaasadda iyo sidii beelaha la heebsooco ku heli lahaayeen xuquuqda kaga maqan siyaasadda dalka. hay'adda imkan oo kaashanaysa EZA waxay aad ugu faraxsan yihiin inaad qayb kala noqotaan tababarkan maalinta qaatay ee laga hadlayay rugni aad iyo aad muhiim u ah geedi socodka doorashooyinka arrimaha dimuqraadiyadda, doorka haweenka iyo saameynta ay ku yeelan karaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo kooxaha la isku dhaho point 5 aad baad u mahadsantihiin. uma maleyn doono in tababarkan uu noqon doono kii ugu dambeeyay. waxaad ka warqabtaan imkan inay representation iyo tababaro kala duwan oo arrimahan iyo arrimo kale laga hadlayo ay ka qabatay guud ahaan Soomaaliya iyadoo kaashanaysa hay'ado fara badan aysana ay ka mid ahayd hay'adihii mataqaana qaybta ka ahaa in barnaamijkan maanta aan inta ku fulinay iyo kuwa la mid ah suurageliyay in gobolada Soomaaliya aan geeyno. waxyaabaha la idin ka rabo marka waxay tahay qaybihiina maanta meesha qaybta ka noqday ama fursad u helay inaad tababarkan ka faa'iideysataan. waxaad tihiin messenger waxaa la qof xog la siiyay xogtii qaadaya bulshada inteeda kala gaarsiinaya. qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Muqdisho ku nool wax la soo koobi kara ma aha, waa aad bay u tiro badan yihiin, laakiin intiinaana nasiib u yeeshay. marka nasiibkaad u yeelateen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka codsanaynaa in wixii la idin baray aad bulshada kala bartaan. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4. marka xisaabta inay saa u socoto baa la rabaa bulshada aad gaarsiisaan wanaaga iyo habka ay leedahay aad gaarsiisaan. wacyigelintan maantana ay ku saabsaneed odayaasha iyo haweenka iyo dhammaan qaybaha kala duwan sidii qayb aga noqon lahayd soo saarista xuquuqaadka haweenka iyo cid walba oo taways in xuquuqaad gaar ah ay ka maqan tahay. qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay seminaarka ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka faa'iideen intuu seminaarka socday. waxayna sidoo kale ka hadleen hay'adda imkan waxay bulshada Soomaaliyeed u qabato. bismillaahi magacayga waa Nuur Xuseen Daawud. maasha Allah seminaarkan maanta waxaa ka fahmay waxyaabo badan, aqoon badan oo iga maqneeda ay soo kordhisatay. aadan ugu faraxsanahay seminaaradan camal inaan ka qayb galo. maasha Allah hay'adda imkan waxay bulshadu u heesaa waxyaabo badan. maasha Allah meesha hadda ka sii socdaan inay hore ugu sii socdaan rajeynaa insha Allah taala aysa gadaal dhan aysa u noqonin. wallahi horta qoondada haweenka laga hadlay waxa waay arrin aad iyo aad u qiimo badan. barnaamijyo badan iga maqnayn waan arkay ficilo kala duwan oo shacabka ku dhex jireen. waan arkay 4.5 dadka aaminsanayna jiraan 4.5 ma jiro oo qulubta ka dileen dadkaas waxaan leeyahay qof gooni loo soocay ma jirto qof waliba wadankiisa jooga ee qodada iska saaro ee qaybtiisa ka qaato dhulkiisa iyo dadkiisa. wallahi hay'addan imkan bulshada aad iyo aad wax badan ay ka qabataa. barnaamijyo badan anaga shakhsiyaadkan xitaa barnaamijyada la qabatay la shaqeysay EZA ayaan ku faraxsanahay waxa ay dadka bulshada ay la wadaagayso. magacaygu waa Faaiso Maxamuud Xaashi. waxa maanta seminaarkan aan ka faa'iiday sidii koondada haweenka ama siyaasadda dumarka 30% kor loogu qaadi lahaa iyo sida dadka la heebsooco ay uga qayb gali lahaayeen kaalinta qaybta siyaasadda. intaas ayaan ka faa'iidnay. hay'addan EZA marka la yiraahdo dhowr mar ay barnaamijyo noo qabatay aad bay u mahadsan tahay. hay'adda imkan iyo EZA oo wada jira ayaa seminaarkan maanta noo qabteen. wax aad iyo aad ayaan uga faa'iidnay, balse waxaan aad u rajeynayaa inay intaan in ka badan hore noo socodsiiyaan. waayo hami waxaan galay awlo ma guryaha iska joognay, laakiin hadda barnaamijyada marka ka qayb galnay waxaan ogaanay dumarka xaq ay leeyihiin iyo siyaasadda doorka ay ku leeyihiin. hadda wixii ka dambeeya waxaan rajeynaynaa hamigeena inaan xildhibaano iyo waxaas kamid ah soo sharaxno. magacaygu waa Nisa Cabdi Casiis.
aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb galo kulankan lagu hadlayay qoondada haweenka ee boqolkiiba 30 wax badan ayaa laga faa'iideeyay mawduuca maanta imkaan ay soo diyaarisay aadan ugu faraxsanahay aniga iyo tiimka kale ee ka soo qayb galay ee kulanka wax badan waan ka faa'iidno oo ku saabsan qoondada haweenka ee boqolkiiba 30 gabagabada seminaarka ayaa waxaa goobta ka hadlay Sheekh Xuseen oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in tababarkan lagu soo aadiyay xilli dalka uu doorasho ku jiro isla markaana loo baahan yahay in la ilaaliyo qoondada haweenka ee siyaasadda boqolkiiba 30 waxa uu ugu dambeyn u mahadceliyay hay'adaha imkan iyo EZA ee suurageliyay in seminaarkan la qabto hadda mar walbana hay'adahan imkan iyo ayzaba waxay diyaar u yihiin sidaan oo kale wixii tababaro ah wixii barnaamij ah ayadoo xaaladda dalka u maray qiimeynaysa tababarka waxa lagu soo aadiyay xaalad doorasho lagu jiraa saas lagu soo aadiyay iyadoo ihtimaam la siinayo laba arrimood qoondada haweenka oo u baahan in la ilaaliyo boqolkiiba 30 oo kuraasta haweenka ku qoran sidooda loo daayo aan ugu tartamin iyo midda kale siyaasadda heeb sooca in laga ilaaliyo oo aan dadka aanan la xaqiirin oo si siman loo tartamo oo si siman loo daahfuro doorashada naftirkeeda oo aan la xelin oo kuraasta aan la xelin oo qof kastoo shuruudaha buuxi kara oo Soomaali ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah inuu xaq u leeyahay inuu wax doorto in la doorto marka daahfurnaantaas waa loo baahan yahay waxaan markii insha Allah ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad u mahadsantihiin Maxamed Axmed Mursal warbaahinta qaran magaalada Muqdisho